باور قرية لوها يسكرها قفكي قرية بدنا هايسناي هرتا جرا سو واي يا هرتا جرا سو واي لغا هوب بدناي لغا عيدن بدناي لغا دد بدناي حتى تاgeer caalami laga badnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii warkiisa cadeysay isagoo sidoo kale Jubbaland wuxuu sheegay qof ugu wakiil ah inuu soo abaabulo ama boodhiso maamulka cusub ee New Jubbaland oo halkaas ka talin doono sidoo kalena caasimadiisa ay noqon doonto ee gobolka Gedo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u wakiishay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dhismaha maamulka cusub ee Jubbaland isaga oo faray in sida ugu dhaqsaha badan loo gudagalo dhismaha maamul cusub oo lagu dhabar jabinayo ee midka uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Jubbaland ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka doonaya inay noqoto mid ka duwan Jubbalandtii hore isagoo sidoo kalena doonaya inuu isku jabiyo laba maamul goboleed oo cusub kuwaas oo mid kastana magaciisa uu noqon doono ee Jubbaland cusub ee la asaasi doono waxa hogaamin doono qof ka soo jeeda beesha Mareexaan iyadoo sidoo kalena caasimadeeda ay noqon doonto ee gobolka Gedo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Kismaayo caasimada maamul goboleedka ee Jubbaland oo halkaas natiijo eber kala soo laabtay ayaa sidoo kale sheegaysa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xanaaqay isla markaana uu qaatay go'aan degdeg ah taasoo keentay inuu sidoo kale si degdeg u abaabulo in halkaas laga aasaaso Jubbaland cusub qofka ugu wakiilka ee Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan halkaas joogana Cabdirashiid Janan oo ku sugan balad Xaabo ayaa si rasmi ah u shaaciyay in dawladda Soomaaliya ay u egmatay isaga in mar kale la aasaaso Jubbaland cusub taana ay tahay go'aankii kama dambaysta ahayd ee lagu doonayay in lagu aasaaso maamul cusub isla markaana lagu dhabar jabinayo madaxweynaha imaka talada maamulkaasi haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidee ayay isku waafaqi doonaan in laba maamul oo halkaas laga dhiso mid kastana magaciisa oo la yiraahdo Jubbaland cusub iyo Jubbalandtii asaasay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hore kaalin mugle ayuu ugu qaatay in halkaasi saddexdaas gobol ee loo magacaabo magaca la yiraahdo ee Jubbaland mar kalena wuxuu doonayaa inuu kala jaro saddexdii gobol mid ka mid ah ee gobolkaasina uu dhiibo beesha Mareexaan iyagoo halkaasi ka hogaamin doonaan ugu dambeyntiina waxaa la sheegaa dad ka mid ah siyaasiyiinta iyo falanqayaal waxay sheegeen in danta gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka leeyahay arinta New Jubbaland ay tahay inuu isku jabiyo beesha Mareexaan iyo ogaadeenka reeraha kala duwan halkaasi ujeedada ugu weyn ay tahay in Jubbaland cusub ay weerar ay ku qaado ee Jubbaland kale iyadoo ku eedeynaysa in Axmed Islaam oo halkaasi sharci darro uu ku fadhiyo isla markaana maqooninayo ee maamulkaasi iyo shacabka halkaasi ku sugan sidoo kalena ay u baahan yihiin in la badbaadiyo Cabdirashiid Janan oo hogaamin doono ee maamulkaasi wali aan si rasmi ah loo shaacin inuu noqon doono madaxweynaha maamulkaasi laakiin la xusay in qof ka soo jeeda beesha Mareexaan uu hogaamin doono ayaa kaalin mugle ka qaadan doona sidii loo soo qaban lahaa hogaamiyaha haatan Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe qorshaha ayaa ah in Jubbaland cusub la aasaasayo in lagu weeraro ee maamulka Jubbaland Kismaayona toos loo galo iyadoo sidoo kale lagu galayo gabaarida culus iyo sidoo kale gaashaaman oo halkaasina gacanta lagu dhigi doono iyagoo sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta Afrika u jooga ay sidoo kale kaalin mugle ka qaadan doonaan marka laga reebo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenyaanka ay garab istaagi doonaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe qorshe culus oo ka socota Villa Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xamse Barre oo doonaya inuu halkaasi uu ku muujiyo dadaalkiisa ugu dambeeyay maadaama sanadkii ugu dambeeyay xilkiisa uu ku guda jiro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah qofka ugu wakiishay ee maamulkaasi dhismaheeda cusub ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaasoo lagu jabinayo maamulka kale hogaamiye Axmed Madoobe sida la ogaaday qorshaha ayaa la isku raacay in la soo gabagabeeyo muddo 45 cisho gudahooda iyadoo madaxweynuhu soo jeediyay in musharaxa cusub ee Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo oo noqdo wasiirka amniga gudaha ahna xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa loo qorsheeyay inuu maamulkaasi ka noqdo madaxweyne isagoo sidoo kale la doonaya inuu hogaamiyo Cabdirashiid Janan oo booskaasi ka soo bixi waayna qofka labaad uu yahay Fartaag uuna yahay midka ugu muhiimsan sidoo kalena daacad u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxda Villa Soomaaliya Fartaag ayaa lagu eedeeyay inuu gumaad uu ka geystay Jubbaland isagoo halkaasi dhibaatooyin kala gadisan uu ka geystay Axmed Madoobe oo ku eedeeyay taasoo ahayd inuu sidoo kale isku diray shacabkii halkaasi degnaa ee gobolka Gedo sidoo kalena ku jeediyay ee dawladooda kooxda Villa Soomaaliya ayaa si la mid ah rumaysan in qorshahan uu door weyn ka ciyaari doono Cabdirashiid Janan kaasoo la isku raacay inuu buuxiyo booska uu banaaneeyo Fartaag ee wasiirka amniga ee gudaha Janan oo shalay kulan la yeeshay waxgaradka gobolka Gedo ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya
ay gudugeli doonaan dhismaha Jubbaland cusub taasoo aan ku xirnayn dalal shisheeyay sida uu hadalku dhigay. Si la mid ah wuxuu shacabka faray inuu u diyaar garoobaan dhismaha maamulkaasi oo uu tilmaamay inuu si toos ah ula shaqayn doono dowladda federaalka Soomaaliya. Jubbada hoose waxaa haysta Axmed Madoobe oo dowladiid ah. Jubbada dhexena waxaa joogta Al-Shabaab. Gedo oo xor ah waxaa sidoo kale iyaduna kaalin iyo garab ay la tahayba dowladda federaalka Soomaaliya u sameynaysa maamul ay u dhan yihiin reer Jubbaland oo ku xiran xamar aan u xirnayn Nairobi iyo Addis Ababa ayuu yiri Janan. Toddobaadkan gudihiisa ayaa la filayaa in wafdi isugu jira xildhibaano iyo wasiiro hogaaminayo wasiir Fartaag ay gaaraan Gedo halkaasi oo ay ka bilaabmi doonaan qorshaha dhismaha Jubbaland cusub. Arrintan oo heed qorshaha labaad ee Plan B ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa ayaa la gudagalay oo sidoo kalena la doonayaa in la hirgeliyo kadib wadahadaladii Kismaayo. Axmed Madoobe uu diiday dalabaadka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddii arrintan dhacdo waxaa la filayaa inuu sii kaco khilaafka u dhexeeya Axmed Madoobe iyo Villa Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee waxay tahay u muuqatay fursad u suurtagelinaysa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka baxo cadaadiska beesha caalamka ee ku saabsanaa wadahadalka Kismaayo, iyadoo muujinaysa in socdaalku ku tagay halkaasi oo horseeday tanaasul iyo guul siyaasadeedba. Ugu dambeyntii Villa Soomaaliya ayaa qorshaheeda ah in halkaasi gacanta ay ku dhigto isla markaana Axmed Madoobe ay weerarto si ay uga baxdo cadaadiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kala kulmayo beesha caalamka, taasoo ah inay ku waajibto madaxweynaha Soomaaliya inuu la heshiiyo hogaamiyaha Jubbaland haatan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale magaalada Kismaayo caasimadda maamulkaasi ay ku sugnaayeen ergay ka kala socdeen Imaaraadka iyo sidoo kale Kenyaanka, kuwaasoo doonayay inay halkaasi ka ogaadaan waxa uu doonayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo sidoo kale ku amrayay Axmed Madoobe waxa isagu dan u ah kaliya inuu ka hadlo uusan sameynin wax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dan u ah, taasoo sababi karta in halkaasi laga eriyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii uu aqbalo shuruudda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. taasoo sidoo kale guul horseedaysa Villa Soomaaliya, natiijo horlena ay ka heli doonaan heshiiskii ay la gadeen ee Jubbaland. taa beddelkeeda Axmed Madoobe wuxuu ku adkaystay go'aankiisa inuusan sameynin waxa iyadoo ay doonayso Villa Soomaaliya. taa beddelkeedana Kismaayo kaliya ay aqbalayso wax kasta iyada dan ugu jirto. haddii marka hore ee Villa Soomaaliya ay doonayso waxa iyada ay doonayso ah in doorashada dib looga laabto, Axmed Madoobe ayaa hadalkiisa ku yiri waa inay aqbashaa in madaxweynaha Jubbaland oo mar kale uu yahay qofka ugu mudan amaba saxdu yahay, Villa Soomaaliyana ay soo saarto qoraal rasmi ah oo ka hadlayso doorashadii hore u dhacday inay sax tahay. taa beddelkeeda kadibna wada xaajoodka arrinta doorashada dib loo qaban lahaa la gudagalo. halka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arrinkan fashil u arkay, sidoo kalena uu mooday inuu la gaadayo islamarkaana taana ay tahay siyaasad hor leh oo looga ciyaarayo Villa Soomaaliya, ayaa sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu aqbalo in Villa Soomaaliya ay soo saarto warqad ay ku aqoonsanayso hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku qasban yahay inuu aqbalo, sidoo kalena uu soo dhaweeyo amaba uu la heshiiyo maamulka Jubbaland iyo hogaamiyaheeda. arrinta ugu muhiimsanna ay tahay in haddii doorashada la aado 2026 teendhada afisyoon la isugu yimaado, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uusan wax cod ah ka heli doonin ee maamulada Jubbaland iyo Puntland. arrinta ugu muhiimsanna ay tahay inuu la heshiiyo, taana sababta ugu weyn oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u tagay magaalada Kismaayo ay ahayd sidii uu kasban lahaa codka reer Jubbaland. haddii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud muddaxileedkiisii yar ee ka hartay ee bilooyinka oo la heshiin waayo Jubbaland, sidoo kalena Puntland diyaar uma ah inay la heshiiso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddii doorashada la isugu yimaadana halkaasi waxaa looga adkaan doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mar kale inuu ka soo laabto ee talada dalka, iyadoo maamulada kale ay indhaha ka wada hayaan. halka khilaaf cusubna la sheegay inuu ka furmayo ee maamulka Hirshabelle. ugu dambeyntiina ay horseedi doonto in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mar dambe xitaa qabriyeed ahaan inuusan ugu soo laaban doonin ee dalka.